musharax madaxweyne ahna mid ka mid ah siyaasiyiinta ugu miisaanka culus ee u tartamaya kursiga ugu sareeya dalka ee madaxweynenimo mudane maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa maanta salaan iyo booqasho ugu tagay madaxweynayaasha maamul goboleedyada Jubbaland iyo Puntland kuwaasoo isbuucaynu ka soo gudubnay yimid magaalada Muqdisho. Kulankan oo madaxweynihii hore Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ugu tagay hogaamiye dowlad goboleedyada Puntland iyo Jubbaland kaliya ma ahayn salaan iyo booqasho, balse ujeedka ugu weyn ee kulankan ayaa ahaa mid looga arinsanayay hadlayay sidii xal wadajir looga gaari lahaa caqabadaha xilligan jira oo ay ugu weyn tahay khilaafaadka siyaasadeed ee garabyada kala duwan leh ee xilligan ka jira gudaha dalka. Dhinaca kale maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa bogaadiyay imaanshihii madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Jubbaland iyo Puntland isagoona ku tilmaamay inay muujiyeen tanaasul. isagoo imaanshiyaha madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Puntland iyo Jubbaland ka hadlaya ayuu yiri waxaan soo dhaweynayaa imaanshiyaha labada madaxweyne ee caasimadda Muqdisho anigoo ku dhiirigeliyay dadaalada ku aadan sidii looga gaari lahaa heshiis loo dhan yahay oo dalka looga badbaadin lahaa wanti la'aan qalalaas amni oo ka dhashay khilaafaadka la xiriira doorashada iyo dastuurka ayuu ku yiri qoraal uu bartiisa Facebook soo qoray. isagoo hadalka sii wata madaxweynaha hore maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa waxa uu fariin u diray madaxweynaha Soomaaliya xasan sheekh maxamuud wuxuuna ugu baaqay inuu la yimaado tanaasul looga gudbi karo isdiidooyinka iyo ismariwaaga xilligan jira. ugu dambeyn maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa ugu baaqay in isdiidooyinka siyaasadeed ee ka jira dalka aan looga mashquulin abaaraha ka jira gudaha dalka.